دكتور حسن جامع ayaa shaqada dib uga bilaabay Bilkhair Clinic doctorka ayaa safar shaqo maalmihii ugu dambeeyay ugu maqnaa wadanka Turkiga Dr. Xasan ayaa hadda fadhiisan doona gelinka hore iyo gelinka dambaba Bilkhair Clinic waxaana ka warbixiyay Cabdulla Cawil oo kamid ah mas'uuliyiinta Bilkhair Clinic waxaan ogeysiinaynaa dhammaan dadweynaha gobolka Togdheer iyo nawaaxigeeda in maanta bisha tahay 16 bisha 9 in uu dhakhtarkii fadhiisan jiray Bilkhair Clinic Dr. Xasan Jamac hawshiisii dib uga bilaabay qaliinka iyo saarista computerkaba waxa uu dhakhtarku uu muddo ugu maqnaa Turkiga hawlo waxbarasho marka waxaan dadweynaha la socodsiinaynaa in ay dib u bilaabi doono shaqadiisii haddana uu dib u bilaabay iyadoo uu ku fulin doono qaliimada iyo saarista computerkaba waxa ay Bilkhair Clinic dadku ugu bishaareenaysaa in ay hayso dawooyin tayo leh oo Yurub iyo Turkiga isugu jira waxa kale oo ay Bilkhair Clinic ay dadweynaha u sheegaysaa in ay sameynayso magaranaysaa ay hayso lab casriya oo ay ku sheebaari doonto cudurro kasta oo magaranaysa dadka laga baaro marka waxaan dadweynaha mar labaad iyo mar saddexaad sheegaynaa oo ogeysiinaynaa inuu Dr. Xasan Jamac dib uga bilaabay shaqadii Bilkhair Clinic waan gacmo furan Bilkhair ku soo dhaweynaysaa waxaan leenahay ku soo dhawaada Bilkhair Clinic oo aad uga barateen daawooyin tayo leh iyo dhakhaatiir hufan iyo shaqaale u jajaban dadka ay u adeegayaan Bilkhair Clinic ayaa kamid ah goobaha caafimaadka loo tago ee magaalada Burco waa Cabdirasaaq Cabdullaahi Aadan Cabdirasaaq Roto telefishinka caalamiga ee Saab Burco